wasiirka kobcinta dimuqraadiyadda ee dalka Itoobiya Zadig Abraha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay dagaalkii TPLF lala galay in uu soo dhamaaday hawsha harsanna ay tahay hoggaanka TPLF in la soo qabto si sharciga loo horgeeyo. Sabtida berrito ah ayaa noqonaysaa maalintii toddobaad xilliga ay dowladda dhexe ee Itoobiya ku dhawaaqday in ciidamadeedu ay la wareegeen caasimadda Tigray ee Maqalla, halka ay hoggaanka TPLF ee Dhuumaaleysiga ku jira ay sheegayaan in dagaalka wali aanay fari ka qodnayn. gudoomiyaha jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF Depression Gabra Michel iyo sidoo kale Getachew Reda oo ah xubin sare oo ka tirsan hoggaanka TPLF oo telefishinka Tigray maalintii shalay ahayd u waramay waxay sheegeen dagaalka in uusan soo afjarmin isla markaana aanay wali fari ka qodnayn. hase yeeshee wasiirka kobcinta iyo dimuqraadiyadda ee Itoobiya Zadig Abraha waxa uu sheegay awoodda TPLF ay waqti xaadirkan ku sugan tahay in aanay ahayn mid ay dagaalku ku sii wadi karto, maadaama uu sheegay in ciidamo u dagaalama iyo xub culus oo ay ku dagaalamaan midna inaysan haysan taageero shacabna sidaas oo kale ma haystaan, ayuu yiri Zadig Abraham oo ah wasiirka kobcinta iyo dimuqraadiyadda. toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada dowladda Itoobiya markii ay qabsadeen magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Tigray, hoggaanka TPLF waxay isaga bixeen caasimadda Maqalla iyaga oo sheegay in dagaalka sii wadayaan. ciidamada federaalku caasimadda Maqalla way qabsadeen, balse Maqalla ay ciidamada qabsadeen in aysan ka dhignayn magaalada oo ay hanteen hanashadu waa taageerada shacabka oo la hantiyay, ayuu yiri Getachew Reda. dagaalka ay ciidamada dowladda ku qabsadeen magaalada Maqalla waxaa ka soo baxay warar sheegaya in ay dad rayida wax ku noqdeen, kastoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo baarlamaanka dalkaasi la hadlayay uu sheegay hal qof oo rayida xataa in uusan dagaalkaasi wax ku noqonin. Zadig Abraha oo ka hadlaya amuurtaasina waxa uu sheegay in dowladda ay dadaal aan yareyn ay u gashay waxyeelada dagaalka ka soo gaari karta shacabka rayidka ah, sidaa daraadeedna aysan jirin dad rayid oo dagaalkaasi waxyeello ay ka soo gaartay. dagaalka deegaanka Tigray ka dhacay waa mid sharciga iyo kala dambeynta loogu soo celinayo oo lagula dagaalamayo xoogagga TPLF, balse ma aysan ahayn mid shacabka deegaankaasi lala galay, ayuu yiri wasiirka kobcinta dimuqraadiyadda Zadig Abraha. waxaana uu intaasi ku daray shacabka dagaalkaasi waxyeello kama soo gaarin. markaynu leenahay waxaan ka hadlaynaa dhanka dowladda, balse dhanka TPLF waxyeellada ka timid kama hadlayno, maadaama inta uu dagaalka socday ay shacabka gabaad ka dhiganayeen. hoggaanka TPLF waxay marar badan ciidamada dowladda ku eedeeyeen shacab rayida oo aan hubaysnayn in ay waxyeello u geysteen. wakaalada wararka ee Reuters oo soo xigatay ila wareedyo isugu jira diblomaasiyiin iyo hay'adaha samafalka waxa ay sheegtay 4 ka mid ah shaqaalaha hay'adaha gargaarka u shaqeynayay oo dhammaantood u dhashay dalka Itoobiya in lagu dilay xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea. deegaanka Tigray tan iyo marka uu dagaalka ka qarxay waxa ka go'an adeega telefoonada iyo isgaarsiinta marka laga reebo magaalooyinka dhowra oo maalmihii u dambeeyay adeegaasi dib u helay. waxaan gabi ahaanba adag in la helo ilo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. dagaalyahanada TPLF-na oo badankood markaa ka yimid koox militariga ka tirsanayd iyo maleeshiyaad kale oo gobolkaasi ka jiray ayaa la malaynayaa in ay tiro ahaan gaarayaan 250,000 oo askari. ururka waxaa la aasaasay sanadihii 1970-meeyadii waxaana uu ku caanbaxay kacdoonkii kalitaliskii Mengistu Haile Mariam oo xukunka laga tuuraysna sanadkii 1991. waxay kadib ahayd quwad siyaasadeed oo dalkaasi ka jirta ilaa Abiy uu ra'iisul wasaare ka noqday Itoobiya sanadkii 2018. Master Depression ayaa sheegay in ciidamada Tigray ay diyaar u yihiin in ay dhintaan iyaga oo difaacaya xaqa ay u leeyihiin in ay maamulaan gobolkooda. dhanka kale sarkaal sare oo ka tirsan TPLF ayaa sheegay in dagaalka Tigray uusan weli dhammaan isla markaana uu ka socdo deegaano kala duwan. Getachew Reda oo la hadlay telefishinka Tigray ayaa sheegay in madaxda TPLF ay isaga baxeen caasimadda Maqalla maadaama aysan doonayn in lagu dhex dagaalamo gudaha magaalada. dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in la soo gabagabeeyay wajigii ugu dambeeyay dagaalka kadib markii ciidamada ay la wareegeen caasimadda Maqalla. waxaa aad u adag in la xaqiijiyo wararka ka soo baxaya gobolka maadaama inta badan uu maqan yahay qadka isgaarsiinta ee gobolkaasi.